السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيكم محمد عبد الرحمن كنا سودو هذا channelka waxyaabo badan baa soo dhigi jirnay maalinba wax baan soo dhigi jirnay laakiin maanta fiidiyoga soo dhigayna gabi ahaan buu ka duwan yahay fiidiyoyadii hore soo dhigi jirnay. sheekadan maanta aan idin soo gudbinaya waxay ka mid tahay sheekooyinka ugu la yaabka badan ee soo maray caalamka. sheekadan maanta waxay bilaabmaysaa 2013 waliba bishii February markaasoo dad kamid ah dadkii deganaa hoteelka Cecil ay sheegeen in ay biyaha ka soo baxay qasabada hoteelku amaba kuwa ay ku dhabaashaan ay yihiin qaar aad u madow oo urtooduna tahay mid aad u qarmoon markaasoo sheegeen inaanay u dulqaadan karin. isagoo uu sheegay mid ka mid ah dadkii deganaa hoteelkaasi Cecil inaan biyaha lagu tilmaami karin bayna ahaayeen wax biya. haddana mid ka mid ah dadkii deganaa hoteelkaas ayaa waxay kaloo sheegtay in marka ay gasuuliga biyaha ka soo baxaya ay mooleyn jirtay inay filan baqdin ah oo horor ku jirto yaabanayd biyuhu soo baxayaan. waxaana sheegtay in ay biyahan marka ay soo baxaan qasabad ka soo baxayaan ay aad u madoobayeen muddada ay madowga ugu soconayeen ay ahayd ilaa 10 ilaa 5 second kadibna ay ku soo noqonayeen midabkoogii dabiiciga ahaa. laakiin bal sawirta qofna 2 week kamuu soo ashkatoon biyahan foosha xun biyahan madowga biyahan urtooda xuntay biyahan dhadhowkooga xiyay oo waxay dadku lahaayeen waxaan moodaynay biyahan iska dabiicitay oo waxay dad ku dhaca oo kale ay tahay marka umaana soo sheegin dadkaasna mar qura u lamay soo hadli maamulka hoteelkaasi Cecil. laakiin 22 February mid ka mid ah dadkii deganaa wuxuu soo garaacay maamulka hoteelka waxaana uu sheegay in biyahani ay ka dhow biyo ka fog yihiin wax biyana lagu tilmaami karin sidoo ku sifeeyay wuxuu ku sheegay biyahan aan la dhadhamin karinba. marka waxa ku qasbanaatay dadkii maamulka hoteelka Cecil inay mid u diraan shaqaalahooda ka mid ah haamaha biyaha ee dul saarnaa hoteelka dushiisa. taasina waxay ku sababtay inay dadku maqlaan wax aad u xun wax la yaab leh wax wiswisaad badan oo ay dadku ku sababtay inay galaan xaalad nafsaani oo aad u xun. ninkii shaqaalaha markii uu koray meeshii sare ee yaalana haamaha biyuhu wuxuu ku arkay mid ka mid ah haamaha biyaha qof mayid ah oo qaawan. meydkana waxa uu noqonayaa ama ay ahayd gabadh la oran jiray Ali Salam oo 3 week ka hor la waayay. gabadha Ali Salam waxa ahayd gabadh Chinese oo ka soo jeeda asal ahaan dalkaasi China waxa la waayay 3 week ka hor oo dadka indhahooda waxay ka qarsoontay muddo ku dhow 3 week ka hor ay ka qarsoon tahay. bal haddaba kaliya waxaan doonayaa inaad sawirataan ama aad eegtaan arrintan in dadka deganaa hoteelka Cecil 3 week muddo ah ay cabayeen biyo ay ku dhex jiraan qof mayid ah oo way ku meedhanayeen way ku cadeeyeen wax kasto lagu qabsado way ku qabsaneen biyahaas qofka meydka ku jirta. nin ka mid ah dadkii deganaa hoteelkaasi Cecil ayaa wuxuu sheegay markii ay maqleen arrinkan la yaab kale in ay calooshooda doonayeen in aad iskaga soo meedhaan ama ay ka soo celiyaan wax kasto ay cunaan. waxa kaloo sheegay in ay markaas galeen xaalad nafsaani oo aad u xun. haddaba sheekadani markii ay faaftay dadkii deganaa magaalada waxay isweydiin su'aalo la yaab leh su'aalahaas oo ah gabadhan maxaa meesha keenay gabadhan say meeshan u tagtay meesha intan leegan qof kaliya gali karin say u tagtay waxyaabo badanna waa la isweydiiyay. haddaba dambi baarayaashii arrintan ku jira ayaa waxay sheegeen inay ku soo gabagabeynayaan arrintan laba arrimood ama laba aragtiyood. labada aragtiyood ayaa mid waxay tahay inuu qof ka deganaa hoteelkan ama ka shaqeynayay inuu gabadhan qaaday kuna soo dhex riday biyahaasi. arrinta labaadna waxay tahay gabadha Ali Salam ay doonaysay iyadu inay nafta iska qaado oo istisho noloshana ay ka faaruqdo marka iyadu ay tagtay meesha iskuna soo tuurtay biyahaas oo dadka badankooda arrintaas ay raacsanaayeen. haddaba sababta ay dadku badankooda aragtidan u qaateen ee ah inay istisho gabadhan ayaa waxay tahay in gabadhan aanay la kulmin wax cunfi ah ama wax dagaal oo qof intuu qabto uu dilay uu meesha ku riday aanay jirin. jidhkeedu markii la soo saaray uu ahaa jidh ka saliimaan wax dhibaato ah qabin oo caadi ah. waxaa aragtidan sii weyneeyay oo in dad badan qaataan ku sababay kadib markii la ogaaday in
dhakhtarada rikoodhada dhakhtarada ka yaala ay joogtay gabadhani ay ahayd in qabto cudurkaas oo dad qofka ku sababaya inuu naftiisa khatar geliyo isagoon u malaynayn naftiisa khatar gelinayo dadka ka soo horjeeda in aragtida alisalaam ee ah inay istisha ayaa waxay ku sababeynayaan in marka alisalaam ay doonayso inay tagto xagga sare ee ruufka sare ama saqafka sare hoteelka in ay marto albaab uu ku xidhan yahay jaraska baraarujiyahi oo marka ay marto albaabkaas uu qaylinayo arrintaasna may dhicin arrinta kale ay doonayaan ama ay ku sababeynayaan in gabadhan aanay istilin ayaa waxay tahay gabadha markii laga helay haamaha biyaha ee hoteelka Cecil ay gabi ahaanba qaawaneed oo aan wax marya aanay xidhnayn xitaa lagama helin jeex marada ka mid ah oo hoteelka dushiisa ama ruufkaas sare saarnayd arrinta kale ay kaga soo horjeedaanna waxaa ka mid ah in gabadhani marka ay doonayso xitaa hadday soo dhaafto albaabkaas marka ay doonayso inay korto haamaha biyaha ee hoteelkaasina haamaha biyaha aad u dhaadheeraayeen oo ay ku xidhnaayeen salaamo aad u dhaadheer salaamahaas oo marna kor u kacay marna hoos soo degayay hadaba ma dhici kartaa in gabadhan alisalaam inta iyadoo qaawan soo dhex martay hoteelka soona dhaafto waxaan oo dhan isku dishay barta arrintu waa la yaab haddaba mawduucan ama sheekadan waxaa la yaab ka sii dhigay kadib markii la ogaaday gabadhan alisalaam inay ka soo jeedo dalkaasi China waxna ka baranaysay dalkaasi Canada haddaba maxaa keenay dalka Mareykanka siib ahaan magaalada Los Angeles gaar ahaan maxay u dooratay hoteelka Cecil kaas oo leh taariikh aad u mugdiya oo waxyaabo badan ka soo dhaceen hoteelkaasi iyadoo la ogyahay in hoteelkaas ku yaala xaafadda ugu xun Los Angeles xaafadaas oo ah xaafada ay ka dhaceen dambiye aad u waaweyn oo waqtiyo badan ka hor soo dhacay kuna noolaayeen dambiilayaal aad u waaweyn ilaa haddana ku nool yihiin waxa kaloo ku nool dadka qaxoontiga ee ka soo baxa meelahaas qaxoontiga adde haddaba arrintan waxaa la yaab ka sii dhigay fiidiyowga ay sawiratay kamarada CCTV iyadoo gabadhan alisalaam oo fiidiyowga ugu dambeeyay ee laga helay gabadha alisalaam iyadoo taagan elevatorka ama wiishka u kala goosho dabaqyada hoteelka Cecil muuqaalkan waxaad ku arkaysaan gabadha alisalaam oo baqanayso moodi inuu qof soo eryanayo kadibna taabanaysa batonada ee dabaqyada ee u kala gooshayso laakiin waxaad moodaa inuu qof soo eryanayo markana waxaad moodaa inay sameynayso dhaqamo la yaab leh sida u dhaqdhaqaaqayso iyo waxyaabaha ay sameynayso markana waxay la hadlaysaa waxaad aan la arkayn meel banaan bay la hadlaysaa lama garanay gabadha inay caqliga ka xanuunsanayso iyo weliba inay la hadlayso jiman iyo shayaadiin kale hadba dadku waxyaabo badan bay isla dhex qaadeen oo ay ka mid ahayd inay gabadhan dileen wax dabiicadda ka baxsan ama waxaanan garan karin waxyaabo badanna aynan ka ogeyn kadib markii ay arkeen muuqaalka fiidiyowgan isagoo albaabka elevatorka amaba wiishku isxidhaya isna furaya lafaantiisa oon cidna xinayn isna cidna furayn dadkuna waxay yidhaahdeen waxaanu nafahayagaan u baqanay kadib markii ay u maleeyeen in hoteelkani degan yihiin jiman iyo shayaadiin cabdish haddaba waxaanay dadku ogeyn ayaa waxay tahay in hoteelkan ay ka dhaceen dilalka ugu badan ee la isku dilo meel hoteelkan wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu badan ay dadku isku dilaan bal sawirta markii la furay hoteelkan 1927 waxaa ka dhacay xaalado isdilitaan oo aad u badan oo weli la garanay sababta ay u dhaceen xataa xaaladaha isdilineedna waxaa ka mid ahaa gabadh la oran jiray Helen Cherny oo iska soo tuurtay dabaqeedii 1954 mid kale jirtay iyadan la oran jiray Julia Moore oo iska soo tuurtay dabaqeedii 8aad 1962 mid kale iyaduna jirtay oo la oran jiray Jolene O'Tor oo iska soo tuurtay dabaqii 9aad kadibna ku soo dhacday qof miskiin oo xagga hoose maray yani waxa la yiri qofka miskiinka dusha kaga soo dhacday qofkii iyadiina bartaas ku dhintay
sidoo kale hoteelkan waxaa ka dhacay dilkii ugu caansanaa Los Angeles kadib markii la dilay gabadh la odhan jiray Elizabeth oo dilkeedana oo ahaa dil aad u xun kadib markii la googooyay inta la googooyay lagu soo agtuuray hoteelkaasi Cecil dadkii haddaba markhaati ahaa waxay sheegeen in gabadhan Elizabeth ay arkeen iyadoo ka soo baxaysa qolkeeda hoteelkaasi Elizabeth sidoo kale hoteelka waxaa deganaa dadkii ugu dambiyada waaweynaa caalamka oo uu ka mid ahaa nin la odhan jiray Richard oo dambiyo aad u waaweyn dilay oo isaguna qiso gaara leh haddaba ha idinka sii yaabiya waxaa dhacday kediskii ugu weynaa kadib markii la ogaaday in film soo baxay 2005 filimkaas oo la yiraahdo The Dark Water ama biyihii madooba filimkan wuxuu ka sheekeynayaa ama qisadiisu tahay gabadh la yiraahdo Aldalia ayaa waxay la soo degaysay inanteeda la yiraahdo Cecilia hotel ama alberco kadib waxay arkaysaa hoteelka in biyaha xagga sare ay ka soo degayaan biyo aad u madow ka soo daadanayaan kadib gabadhan waxay isku dayaysaa inay tagto saqafka sare kadib saqafka sare markay tagto waxay arkaysaa meyd ku dhex jira haamaha biyaha albercada ama hoteelka yar sidoo kale gabadha Dahlia ee filimka aktarada ka ahi waxay ogaanaysaa ama qisada filimka ay ku tahay inay ninkan maamulka ka ah meesha uu ogaa inay gabadhan ku jirto baanta biyaha ee hoteelkaasi gabadhaasi filimka ku metelayso haddaba dadku waxay lahaayeen in filimkani digniin uu sii ahaa dilka gabadhan marka la isku eego dhacdooyinka ka dhacaya filimka iyo weliba dhacdooyinka gabadhan Alisalaam ku dhacay waxaana la sheegayaa inuu filimkani uu ahaa filim digniin u ah dilka gabadhan ee Alisalaam waxaa arrinta la yaab ka sii dhigaya dadka metelaya filimkan ay sheegay The Dark Water magacyadooda gabadha aktarada ee Dahlia Leyda waxaa magacaas la odhan jiray gabadhii Elizabeth Short ee idin sheegay la soo googooyay jirkeeda laguna soo tuuray agtiisa hoteelkaasi Cecil sidoo kale waxaa la yaab lahaa gabadha aktarada ee Dahlia inanteeda ay wadatay oo magaceeda la odhanayay Cecilia markay filimka metelaysay Ceciliana waa magaca Cecil oo aad buu ugu dhow yahay oo aad buu shabaha kaliya waxay ku dareen yaa kedis la yaab leh waxa laga yaabaa in qaar idin ka mid ah ay yiraahdaan waxaan waa wax dhici kara oo kedis weeyo kediskuna wuu dhici karaa haddaba haan idinka sii yaabiye gabadha Alisalaam markii ay dhimatay waxaa faafay cudur aad u xun cudurkaas oo dilay tumanaan degana xaafadaasi Skid Row aan idinka soo sheekay haddaba jeermiska gudbinaya cudurkan ayaa waxaa la yiraahdaa Lam Elisa يعني waa magacii gabadha Alisalaam oo dhinaca kale laga yimaado Lam Elisa xagga hore laga yimaado xagga dambe laga yimaado magaceeda haddaba isku soo duubo sheekadan Alisalaam waxa lagu soo gabagabay afar aragtiyood oo qof waxba ka dhiibanay laakiin ugu dambeyntii waxa lagu soo gabagabay afartan aragtiyood aragtida koobaad ayaa waxay sheegaysaa ama dadka u maleynayaan in gabadhan istishay waxaana ku sheegaynay sababtu tahay markii la arkay gabadhan oo isla hadlaysa fiidiyoga muuqaalka markay ay joogtay elevatorka oo isla hadlayso leelay gabadhan xanuun bay qabtay madaxa oo maskaxda ka xanuunsanaysay dadku markay ayada nafteeda dishay taasna waa wax maskaxda ku yardhow in gabadhaasi istishana way dhici kartaa aragtida labaad ee dadku sheegayeen ayaa waxa kamid ah oo dadka qaar badan iyaduna aaminsanaya waxa kamid ah in mid kamid ah dadka ka shaqeynaya hoteelkaasi Cecil uu gabadhan qaaday geeyina meesha kuna soo ridayadana dilay sababtan waxa sheegaya oo sabab ah taasna in aanu jaraskii indaarka ama jaraska qeylin markii albaabka la furo aanu qeylin waxna aan laga maqlin arrintaas saddexaad ee aragtida saddexaad ay dadku sheegayaan ama ay dadku aaminsan qaar kamid ah ayaa waxay in gabadhan jin ku jira jin baana meesha geeyay kuna soo riday meesha iyaduna bartaasi ku dhimatay ayuu jin baa ku jiray bay sheegaysaa aragtidaasina aragtida afraad ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in gabadhan la doortay oo in badan ka hor la doortay sanado badan ka hor oo waxa doortay dad shaydaanka caabudo sirri ah oo ku sameeyay duquusta ama maraasiimta shaydaanka loo caabudo oo qof baa la dilay marka shaydaanka la caabudo kuwaas shaydaan caabudayaasha ah marka gabadhana saasa loo doortay sheegayaan oo waxa taana sheegay sabab uga dhigayaan filimkii soo baxay 2005 ilaa 8 sano kadibna gabadhan dilkeeda la qaaday ama dilkeedu dhintay ama iyadu ay istishcid dishayna la garay laakiin gabadhaasna waxa ku sheegeen inay dileen duwa shaydaanka caabuda a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waxaan doonayaa inaan akhriyo aragtiyihiina marka aragtidiina ku soo dhiibasaan oo arko aragtiyihiina iyo taad u maleynaysan inay yani dhici karto oo ay maqndaqi tahay wad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan sidaad aragtaan buu waa sheeko la yaab leh sheekadan anigu way iga yaabisay markaan akhrinay yani si kasta waan u eegay dhinac kasta waan ka eegay way iga yaabisay sheekadana aragtiyaha laga bixiyay waad aragtaan laakiin ilaa hadda lama garanay sababta gabadhaas biyaha haamaha ku dhex riday biyaheeda ay dadkuna biyaha u cabeen lama garanayo sababta meesha geeyay gabadha
laakiin aragtiyadu waa la yaaban yahay xataa gabadhu markay fiideoga ay la hadlaysay meesha banaan waa laga yaaban yahay waxay la hadlaysay waa la garan laayay okay si kastaba ahaatee fiideoga adag xaq u leh waxaad kusoo bixin kartid commentiga tag waxaad u qabtid ama waxaad malaynayso kusoo qor commentiga saan u ogaano yani inaguna waxaynu ka qabanaa arrinta ma garan walahan waxaan ka yiraahdo laakiin fiideoyada dambena waxaan soo gudbin doonaa qaar sidan oo kala sheekooyin la yaab leh ama qaar baqdin oo kala aan isnaaxna qaar baqdina marka fiideoga like share channel kan like subscribe share saw la socotid kan baleel ka mijilis kana ishido saw noqotay qofka ugu horeeya daawada fiideoyada soo gelino maca salaama inta fiideo kale ku kulmay